xaaladda maamulka galmudug markaan faraha ay ka sii bahaysaa ciidamada gorgor ayaana ku qulqulaya gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor madaxweynaha maamulka galmudug ciidamada bacsan oo maleeshiyada ayaa iyaguna waxay ku sugayeen duleedka magaalada Dhuusamareeb xarunta maamulkaasi iyo magaalada Cadaado iyadoo ka tirsan maamulka galmudug waxaan rabaa inaan kula wadaago wararkii ugu dambeeyay ka soo baxaya maamulka galmudug dowladda federaalka Soomaaliya oo qaaday tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee gacanta ugu dhigayso deegaanada maamulkaasi ayaan warbixintan ku soo koobi doonaa marka hore soo dhawaada daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 8-ka bisha shanaad ee May sanada 2020 haddii aynu ku bilaawno ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa gorgor ayaa waxay gaareen deegaanada u dhow maamulka galmudug gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor oo wata ciidamada maleeshiyada ayaa wuxuu ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug kulan habeenadii la soo dhaafay ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya oo markaas yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre iyo taliyaha hay'adda NISA Mahad Maxamed Salaad kaga hadlayeen xaaladda siyaasadeed ee deegaanada maamulka galmudug ayaa wax ku soo dhamaaday isfahamwa kadib markii Mahad Maxamed Salaad taliyaha NISA oo ah musharaxa madaxweynaha maamulka galmudug uu sheegay inuu doonayo inay dawladdu ay siido kaarka ugu tartamaya maamulka galmudug ee GSB hase yeeshee dawladdu waxay doonaysaa in madaxweynaha maamulka galmudug ay ka dhigto liibaan shuluq oo ah musharax ay aad u wadato dawladda horkacay Xasan Sheekh Maxamuud Xamse Cabdi Barre iyo wasiiradii markaasi kulanka ku helinayay madaxweynaha Soomaaliya iyo taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad ayaana isfahamada ku soo dhamaaday wixii inta ka dambeeyay dawladdu waxay qaaday tallaabo la mid ah tii koonfur galbeed oo ay doonayso inay xukunka xoog kaga rido Cabdicasiis Aaraade oo madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor tan iyo markii uu ku soo laabtay deegaanada maamulka galmudug waxa uu sameystay ciidamada maleeshiyada wuxuuna ku sugan yahay magaalada Dhuusamareeb ee looga taliyo caasimadda maamulka galmudug dhinaca kale magaaladaasi waxa lagu arkayay ciidamada maleeshiya waa markaas maleeshiya beelada oo ku hubaysana kuwaas ay wataan beelaha sida weyn u taageersan madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor oo muddo 6 sano ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi galmudugna madaxweyne ka ayaa waxa uu doonayaa inuu sii aado madaxweynaha maamulka galmudug hase ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya oo si weyn arrintaasi kaga soo horjeeda waxay doonaysaa inay halkaasi geyso liibaan shuluq oo ah nin markaasi aad u wadato dowladda horkacay Xasan Sheekh Maxamuud dhanka kale Mahad Maxamed Salaad oo ah taliyaha NISA ayaa isaguna aad u doonaya inuu markaasi uu helo kursiga ugu sareeyo ee looga taliyo maamulka galmudug Mahad Maxamed Salaad taliyaha NISA waxa uu soo bandhigay in markaasi wada hadal lagu dhameeyo xiisadda siyaasadeed ee ka taagan maamulka galmudug hase ahaatee dowladda hogaamiye Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxay doonaysaa in si awood ay kula wareegto deegaanada maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor oo dib ugu laabtay deegaanada maamulka galmudug wixii ka dambeeyay waa markaasi uu dalka dib ugu soo laabtay ayaa waxa uu sameeyay ciidamada maleeshiyada oo ku doonayo inuu kula wareego deegaanada ka maqan gacanta maamulka galmudug waxa uu xarumo ka dhigtay caasimadda looga taliyo maamulkaasi Dhuusamareeb iyo magaalada Cadaado oo ah xarunta labaad ee maamulka galmudug ciidamo aad u fara badan oo markaasi lagu tababarayay deegaanada Gurceel iyo deegaano kale oo ka tirsan maamulka galmudug ayaana waxay maanta gaareen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug xiisad cakiran ayaana ka jirta deegaanada maamulka galmudug oo ah maamul waa markaasi waa maamul goboleedka saddexaad ee dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay gacanta ku hayso ayaa haatan waxa laga dareemayaa culays aad u xoogan taasi oo ay ka socolayeen doorashada qof iyo codka ay doonayso dowladda federaalka Soomaaliya inay ka qabato maamulka galmudug wixii ka dambeeyay wixii koonfur galbeed ka dhacay oo dagaal lagu wareegay deegaanada maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen looga saaray dawladdu waxay u jeesatay dhanka Hirshabelle walow Cali Gudlaaw Xuseen lagu qanciyay in markaas uu ku tartamin xisbiga GSB haddana maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor isfahamwa ayaa ka dhex taagan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka horkacayo waxayna doonayaan in markaasi ay meesha kala wareegto dowladda federaalka Soomaaliya xukuumadda horkacay Axmed Cabdi Kaariyo Qorqor Saadiq John oo ah markaasi xildhibaan ka tirsan golaha shacabka aadna u taageersan madaxweynaha maamulka galmudug oo mudooyinka u dambeeyay baraha bulshada hadalla markaasi ku qorayay ayaa waxa uu sheegay in si weyn uu taageersan yahay madaxweynaha maamulka galmudug
saadiq john ay u dhaxdo gabadha uu dhigay oo markaas uu dhalay ismaaciil cumar geelle ayaa isaguna xogaa waxay tilmaamayaan in ismaaciil cumar geelle oo markaas qayb ka yahay wada hadalladan ka soconaya dhuusamareeb ee u dhaxeeyo waa mahad ayraade maxamed salaadi iyo madaxweynaha maamulka galmudug oo ayagu doonaya inay sii difaacdaan waa maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qorqor qodbad uu ka jeediyay munaasabada ciida wuxuu ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya inay markaas si weyn ay maamulka galmudug ay u faragelinayso waxa uu sheegay in laga dhex shaqeynayo maamulka galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya haddaba waxyaabaha ka soo kordha xiisadan ka cusboonaatay deegaanada maamulka galmudug halkan ayaad ka daawan doontaan balse marka hore nagu soo biir oo page-kan subscribe si aad u hesho xogii ugu dambeeyay ee markaas gudaha dalka aad baad u mahadsantahay